الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. waxaynu ku jirnay adkaartii xisn muslimka ayaynu ku jirnay adkaarul aadaani mar hadduu qofku markuu masaajidkii u sii socday iyo markuu ka soo baxay markuu galayay iyo ay markaa ka hadlaynay bal aadaankii markaad maqashana wixii aad odhanaysay iyo adkaarteedii ayuu halkana sheekhu inoo gelayaa. yaquulu wuxuu odhanayaa mithla maa yaquulu lmuadinu, muadinku wuxuu leeyahay oo kale ayuu odhanayaa ilaa fii xaya cala asalaam wa xaya cala alfalaax, labadaa mooyaane. fayaquulu labadaa wuxu odhanayaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah, xeelad iyo awood inooma sugnaanin oo ma jirto ilaahay cuskashadiisa iyo kaalmaysigiisa mooyaane. xadiidka waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya, saxaabiga laga warinayaana waa abi saciid alkhudriy. waxa uu leeyahay lafdiga imaamu lbukhaari, rasuulku salى اllahu عalayh wasalam wuxu uhi idaa samictu nidaءa faquluu mithla maa yaquulu lmuadin, markaa maqashaan muadinka dhawaaqiisa waxaad tidhahdaan muadinku wuxuu leeyahay oo kala dhaha. lafdi isaga imaamu muslim uu leeyahay, cumar bin khadaabna laga warinayo, rasuulku salى اllahu عalayh wasalam wuxu uhi idaa qaala almuadinu allahu akbar allahu akbar markuu yidhaahdo, faqaala axadukum inuu yidhahdo allahu akbar allahu akbar uu ka daba yidhaahdo, uma qaala yihi ashhadu an laa ilaaha ila allahu, qaala isana yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah, uma qaala uu yidhahdo ashhadu ana muxamada rasuulu llah, qaala isna uu yidhahdo ashhadu ana muxamada rasuulu llah, uma qaala yihi xaya cala asalaa, qaala isna uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billah, uma qaala uu yidhahdo xaya cala alfalaax, qaala u yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah, uma qaala u yidhahdo allahu akbar allahu akbar, qaala u yidhahdo allahu akbar allahu akbar, uma qaala u yidhahdo laa ilaaha ila allah muadinku, qaala isna yidhahdo laa ilaaha ila allah min qalbihi uu ka yidhaahdo dakhala aljanna, jannada ayuu gelaya. camalka intaa leeg ee aada muadinkii markaasaa u raacday ee aada la socoto iyo ajriga intaa leeg ee jannada inaad ku gasho aada ku helaysaa. ilaahay hayna waafajiyo. markaa wuxuu leeyahay sheekhu yaquulu wuxuu odhanaya mithla maa yaquulu lmuadin, muadinku wuxuu leeyahay oo kale ayuu odhanaya ilaa fii xaya cala salaa, salaada u kaalaya. xaya cala salaa waa salaada u kaalaya oo xagga salaada iyo masaajidka kaalaya weeye. xaya cala alfalaaxna waa liibaanta u kaalaya weeye. markaa dee adna u kaalaya odhan mayside ila adaa lagu yeerayaaye adna cid kale usii yeeraysaa ma jirtee waxaad odhanaysaa laa xawla walaa quwata ila billah. waa istislaam iyo isu dhiibidaad ilaahay isu dhiibayso oo addoonku markaa inaan xeelad iyo awood midnaba aanu lahayn, ilaahay xeelad iyo awoodi waa inay u sugnaatay, oo qof addoonku xaalad inaanu ka wareegayn oo xaalad kale u wareegaynin, quwo inaanu markaas lahayn, ilaahay oo markaa dee isagu markaas u kaalmeeye mooyaane ayay markaa tilmaamaysaa. xadiidka maxaynu ka faa'iidaysanaynaa inuu ka qaadanaynaa? waxaynu ka qaadanaynaa in muadinka la raaco oo wax la ajiibo oo wuxuu leeyahay oo kale la yidhaahdo. qofku ama ha tahaaro qabo ama yuu tahaaro qabin, yacni xaalad kasta oo uu ku sugan yahay allahuma dee inuu suuli ama ku sugan yahay masaajid mooyaane ama salaad ku jiro. hadduu salaad ku jiro ama suuli ku jiro dee kama daba odhanayo, inuu qalbiga u ka yidhaahdo mooyaane. wax alla wuxuu leeyahay labadaa mooyaa wuu ka daba odhanayaa. waxaa jira asalaatu khayru min annoom oo tahwiib la yidhaahdo, oo salaada subaxiyadu ay leedahay. iyada lafdeeda muxuu odhanayaa? fuqahadeennu waxay yidhaahdaan oo kutubteena fiqiga ku sugan sadaqta wa barirta inuu odhanayo, run baad sheegtay, yacni wax markaa biri oo wanaagsanna waad la timi. waxay yidhahdaan lixadiidi warada bihi, arrinkaana waxaa laga soo qaataa ibnu rifca ayaa laga soo qaataa.
tadkiratu nebihiisaa laga soo qaataa laakiin xadiidgaa baadhnay oo eegnay oo xadiid baa ku soo arooray mooyaane xadiidgaa lama hayo idan markaa ma sugna bay leeyihiin wuxuu odhanayaa un markaa miyuu aamusayaayo iyada mar haddaanay waxba gaarayso miyuu aamusaya me asalaatu khayru min annoom ayuunbuu markaa ka daba odhanayaa aqiimidda ayadana waxa uu leeyahay ayuunbaad markaa iyadana ka daba odhanaysaayo aqiimidduna iyaduna waa la mid asalaatu khayru min annowm waxay markaa iyada yidhaahdaan iqaamadda iyaduna fuqahadu waxay soo naqliyaan aqaamaha allah wa adaamaha laakiin xadiidkan ku soo arooray ayaa iyaduna xadiid daciif oo aan sugnayna saa daraaddeed alfaada ayana iqaamada ayuunbaa laga daba odhanayaa asalaatu khayru min annowm ma aadaanka hore ayaa la gelinaya labada aadaan ee salaada subaxa ilaa mise aadaanka dambe waa masala markaa ay culimada mucaasiriintuna isku khilaafeen culimadii hore markaa sida shaaficiyadoo kale sida damiiri oo kale ku sheegayo kitaabkiisan uu ku sharxayo markaa minhaajka wuxuu leeyahay markaa kii hore iyo kii dambe kii la geliyaaba waa in aadaankaa subaxa uun asalaatu khayru min annoom lagu daraa sheekh albani oo kale isagu wuxuu odhanaya aadaanka hore weeye ka dambe in lagu dareero waa bidci isagu ku tilmaamaya kitaabkiisa tamaamu lminna iyo sifatu salaati nabi saas odhaya halka sheekh maxamed saalex uthaymiin raximah llahu kitaabkiisa sharxu lmumtica aada uu xoojinaya welibana ugu hadal cad yahay in aadaanka dambe la gelinayinka hore aan la gelinaynin kutubtaa u noqdo markaa ka eeg yaquulu waxaa kaluu weliba odhanaya wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك كلام ولبو حرانيا عقيب تشهد المؤذن مؤذنكم مركوا الشهاته دبدي أيو مركا ساورانيا انت هره وبالإسلام دينا أي مركا سقودا بيسو إمام مسلم أي انت ورينيا يقول ذلك عقيب تشهد المؤذن ayadana ibnu khusayma ayaa warinaya sanadkeeduna markaa waa uu sugan yahay oo rijaashiisu waa hiqaad weeye waxaana laga warinayaa sacad ibn abilwaqaas saxaabigaa la yidhaahda ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi man qaala xiina yasmacu lmu'adin qofka yidhaahda markuu muadinka maqlo ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu raditu billahi rabban وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ذنبه سبا الله دافيا تانا ينا ذنب داف أيا بكهليا لفظي ابن خزيمة يسقوها من قال حين يسمع المؤذن كما قال المؤذن مركو لا يهي وأنا أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم wixii horeeyey dembigiisa waa loo dhaafayaa wa ana ashhadu markaa riwaayada ibnu khusayma ayaa markaa tilmaamaysa iyo riwaayada kalena waxay tilmaamayaan ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika inuu markaa qofku odhanayo waxaanay tahay markuu dee yidhaahdo yaquulu dalika caqiba tashahudi lmuadin buu waliba saa odhanaya muadinku markuu ashahaato ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxamadan rasuulullah uu yidhaahdo ayuu leeyahy wa ana ashhadu aniguna waxaan qirayaa an laa ilaaha ilah xaq lagu caabudayo inaanu jirin ila allahu alla mooyane waxdahu xaaluu kelidiya laa shariika lahu weeluma sugnaanin wa ana muxamadan waxaa kaloon qiraya nabi maxamed cabduhu warasuuluhu addoonkiisi iyo rasuulkiisi inuu yahay radiitu billaahi ilaahay ayaan uga raali noqday rabban rabbinimo ayaan uga raali noqday inuu yahay isagu kala keli noqday abuurka iyo arsaaqidda iyo maamulka nooleynta dilidda cid ku haysataa ma jirto waana ka cibaado mutay wa bilislaami diinan islaamnimadana diin ahaan ayaan raalli uga noqday leanna waa diinta ilaahay u dooray khalqigiisa zaman kasta iyo makaan kastaba waata u doorotaana raallinimo ayaanu ka noqday wa bimuxamadin rasuula nebi muxamedna rasuul ahaan baan raalli uga noqdayoo kii uu jiniya insi u soo diray rusushii markaasuu ku gebagabeeyey nebi markaa ka dambeeyey inaanu jirin ayaan markaa isagana qirayaayo taana markaa isagana rasuulnimo
ayaan markaa isagana raalli uga ahay. radiitu biاllahi rabban وبمحamedi rasuula وبالإسlaami diina. yaqulu dalika caqiba tashahud الmuؤdin mu-adinku markuu ashahatay ashhadu an laa ilaaha ila اllahu uu yidhaahdo dabadeed ayuu odhanaya. ashhadu an laa ilaha markuu yidhaha buu odhanaya, isla markaaba wuu odhanaya. xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dikrigan oo intaasoo markaa shahaadada dabadeed aadaanka la yidhaahdaa barakada iyo fadliga ay leedahay oo inuu ilaahay dembigaagii kugu dhaafayo, dembiyaashii sakaa'irka ahaa ayaa ilaahay kugu dhaafaya. waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee waxyaalaha markaa in ilaahay rabbinimo aada u rumaysa lawaasimteeda inaad markaa addoonnimo aada markaa cubuudiyad iyo addoonnimo dhaba inaad markaa muujiso ood xaqiijiso hadalladaada iyo ficiladaada iyo waxaad rumaysan tahay. diinta islaamkuna waa hoggaansan ilaahay aada u hoggaansanto wixii markaa shirki iyo xumaanaya ilaahay markaas ama xumaan markaa lagu sibeynayana aada markaa ka nasahdood ka dheerayso. nebi maxamedna aada markaa rasuulnimo iyo ergenimo u rumayso dee aada ku adeecda wax kastoo uu la yimi, wax kastoo markaa khilaaf kaa garana aada markaa isaga ula noqoto. yusalii cala nabiy sal l sl bacda faraaqi min ijaabati lmuadin, waxa uu ku saliyayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam bacda faraaqihi markuu ka faaruqo min ijaabati lmuadin. mu-adinka ajiibitaankiisa markaad ka faaruqdana waxaad markaa ku saliyeysaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. xadiidkaana imaam muslim ayaa wariyey, saxaabiga laga warinayaana waa cabdillaahi bnu camr bnu caas ayaa laga warinayaa. waxaanu leeyahay anuu samica nabiya yaquulu, waxau maqlay nabiga oo leh idaa samictum lmuadina, mu-adinka markaa maqashaan faquluu mihla maa yaquulu, waxau leeyahay oo kala dhaha, dee xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax mooyaane. uma saluu calaya, intaa kadibna aniga igu saliya, fa inahu man sallaa calaya salaatan, hal salaadka igu saliya sala allahu calayhi biha cashra, ilaahayna 10 jeer ayuu ku saliyaya, ayuu ammaanaya o malaa'igta markaa agtooda ka ammaanaya qiimiisa uu ka sheegaya. uma salu llaha li alwasiila, wasiilada iyo mansilada iyo darajadaana ilaahay ii weydiiya. fa inahaa mansilatun fi ljanna, wasiiladu waa mansilo jannada ah, laa tanbagii ila licabdin min cibaad illah, waxay u habboon tahay uun oo la siinayaa addoommada ilaahay ka mida. wasiila waa mansila iyo darajo jannada ah, weliba almansila cinda almelik baa la yidhaahdaa. addoonun bay habboontahay addoommada ilaahay ka mida. wa ana arju an akuuna huwa, waxaana rajaynayaa addoonka wasiilada iyo mansilada iyo darajada ilaahay agtiisa inaan aniga noqdo addoonkay u haboontay. faman sa'ala lii alwasiilata xallat lahu shafaaca, qofkii wasiilada ilaahay ii weydiiya shafaacadii markaa waa u waajibtay oo waa u sugnaatay. xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa iyo dihriganba inay sunno tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam aadaanka alfaadiisa markaad raacraacda eed markaa ajiibto muadinka inaad nabiga sala allahu alay slm lagu saliyo. waxaa kaloo welibana sheegay inaad ku helayso adigana ilaahay inuu kugu saliyo oo uu ku ammaano. waxaa kaloo aynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa shafaacada nabiga sala allahu calayhi wasalam inay sugan tahay, weliba qeybo kala gedisan ayaana shafaacada nabigu sala allahu alay slm ay leedahayoo lahu shafaacatu lcudmaa, shafaacada weyn nabiga sal l sl iyo shafaacooyin kale oo fara badan. yaquulu waxaa kaloo odhanayaa, weli waxaynu kusii jirnaa adkaartii baynu kusii jirnaa weliba eedaanke, allaahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada lilwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuuda liladii wacadta inaka laa tuklifu lmiicaad. saas ayuu odhanaya. waxaa odhanayaa xadiidkan intaa hore waxaa warinaya markaa aladii wacadtahu, markaa intaa hore waxaa warinaya oo soo saaray imaam albukhaari baa markaa warinaya. intan yaree dambe inaka laa tuklifu lmiicaadna ayadana bayhaqi baa warinaya. weliba sheekh ibnu baaz iyo culimo kale ayaa markaa sanadkeedana tasxiixinayoo sugay, halka markaa sheekh albani oo kale ayada
intaa markaas uu daciifiyo laakiin culimadaa kale ayaa markaa intaa tasxiixisay. wuxuu odhanayaa allaahuma yaa allow rabba haadihi tan rabbigeeda ahow, oo weliba xadiidkuna markaas wuxuu ahaa jaabir ibnu cabdillaahi baa laga warinaya xadiidka waa lafdigii bukhaariya man qaala xiina yasmacu nidaa, qofka yidhaahda markuu dhawaaqa maqlo allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati lqaymati muxameda alwasiila walfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadta xallad lahu shafaacati yowma alqiyaama, shafaacadaydu waa u waajibto waa u sugnaatay maalinta qiyaamaha. riwaayada markaa lafdiga bayhaqina isna wuxuu yahay ee jaabir ibnu cabdillahi isna laga warinaya man qaala xiina yasmacu nidaa allahuma ini asaluka bixaqi hadihi dacwa taama wasalaati alqaayima aati muxameda alwasiilata walfadiila wabcahu lmaqaama almaxmuuda li wacadta inaka laa tukhlifu lmicaad xallad lahu shafaacati. intaas ayuu odhanaya. marka waxaa laga isaga ku dheeraadahun inta dambe ayuunbaa markaa ku dheeraada. waana taan sheegaynay markaas sheekh ibnu baaz iyo culimo kale ay markaa sanadkiisa xasan intaa dambana ku sheegeen. macnaheeduna waxa weeye allaahuma ya allow rabba haadihi tan rabbigeedo addacwatu ee yeedhmada, yeedhmadan kelimaadkan aadaanka oo dacwatu tawxiid markaa dacwadii markaa tawxiidka ilaahay keliyeelkiisu markaa uu ku sugan yahay ataamati ee dhammayska tiran rabbigeedu way dhammaystiran tahay oo shahaadooyinkii iyo ilaahay weynayntiisii iyo khayrka markaa ugu yeedhidiisii ayaa ku sugan. allaahuma rabba hadihi dacwa taama wasalaati alqaa'ima iyo salaada laysu taagi, salaada allatii satuqaam laysu taagi weeye, ama wasalaati alqaa'ima salaadan joogtada ah ee aan isbedelaynin la nasakhaynin. rabbigeedow aati waxaad siisaa muxamadan nebi muxamed waxaad siisaa alwasiilata, wasiilada iyo mansilada ugu sarraysa jannada ilaahayow sii, walfadiilata fadiilo iyo dheeraad ilaahayow sii, oo fadiiladu bay tafsiir u tahay ama waa martabo kaloo markaa iyana dheerada ilaahu siisi. wabcahu ilaahayow soo saar maqaaman daa maqaamin isagoo maqaam iyo fagaarow saaxiiba maxmuudan la mahadiyo alladii wacadtahu ilaahayow kaad u yaboohday casaa rabuka an yabcahaka maqaaman maxmuuda ilaahayow sii. ama wabcahu waaqimhu ilaahay waxaad soo joojisaa maqaaman maxmuuda maqaam iyo fagaaro lagu mahadiyo alladii wacadtahu ee aada markaas u yaboohday ilaahayow soo jooji ama soo saar isagoo kaale. waa dee waa halkii khalqiga oo dhan markaa nebi walba loo tago, dadka marka cadeedda may loo keeno, dhididkooda uu xakameeyo, meel loo kala dhaqaaqo la waayo, marka dambe nebiyullaahi moxamed loo tegayo ee uu leeyahay aniga ayaa tan leh, ee dabeetana ilaahay u sujuudayo, ee ilaahay maxaamidiya sanaaga u furayo, ee dabeetana odhanayo kor u qaad madaxaaga weydiiso waa lagu siin washfac tushafac, erge waa laga erge aqbalayaaye yacni la odhanayo. waa taas weeye marka ilaahay ow taasi ayuu odhanayaa. xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay markaa sunno tahay aadaanka dabadii in salliga nabiga sal lla ly slm iyo ducada markaa ka dambaysaba inay markaa sunno tahay. nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha markaas loo weydiiyo uu nabigu sal lla ly slam ii weydiiye uu yidhi waxaana markaa dee lagu helayaa markaad u weydiiso in shafaacada nabiga sala allahu calayhi wasalam aada ku hesho. waxaa kaloo xadiidkan ka qadaya shafaacadiisu inay sugan tahay maalinta qiyaamaha oo shafaacada weyn ee markaa cid la wadaagaysa aanay jirin ee taa khalqiga markaa ku dhaqaajinaya albaabka jannada furitaankeedu ayana waa shafaaco, isaga ayaa ugu horeeya cidda gelaysa. cadaabka markaa adeerkii abu aalib ka fudaydintiisa, darajaad markaa aqwaam ummadiisa ka mida buu ergeynaya, cusaad ahlu tawxiida ayuu markaas u ergeynayaa. alfaada markaas aadaan yani ducadana sidaa ay tahay ayaa markaa lagu yani koobaya, wax markaa lagu darayaa ma jirto. sayidina moxamed isagoo sayid alawaliin walaakhiriin ah
ayaa haddana aan adigu raacinayne sidaa ay tahay allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati lqaayim aati muxamedan baad odhanaysaa sayidina maxamedan odhan maysid. waxaa kaloo ay markaa dadku raaciyaan wadarajata rafiica ama alcaaliya, taasina iyaduna ma sugna oo nabiga sala allahu calayhi wasalam kama sugna, markaa iyadana ku diri maysid. waxaa kaluu sheekhu uhi yadcuu linafsihi, nafdiisa ayuu qofku u ducaynayaa bayna alaadaani waaliqaama, aadaanka iyo aqiimitaanka dhexdooda. fa ina ducaaa xiinaidin, ducadu xilliga laa yuraddu lama celiyo. xadiidka imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ayaa warinaya, sheekh albaanina irwaa lkhaliilka ayuu ku tasiixinaya xadiidka. waxaana laga warinaya anas ibnu malik, nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waaliqaama, lama celiyo ducada aadaankii aqibitaanka u dhaxaysa. ilaahay wuu aqbalaayo xilliyada ducooyinka la aqbalo ayay ka mid tahay. lafdi imaamu tirmidi uu leeyahay oo anas ibnu malik laga warinayo, nabigu sala allahu alay sl uhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waaliqaama, ducada aadaanka iyo aqibitaanka dhexdooda lama celiyo. qaaluu waxay famaada naqulu ya rasuula allah, oo maxaan idhaahnaa haddii haddaba aan la celiyo xilligaa maxaanu ku ducaysanaa? salu llaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira, waxa weydiisataan caafiye ilaahay weydiista, inuu ilaahay markaa balaayooyin oo dhan iyo makruuhaad oo dhan ilaahay idinka caafiyo, hadday jidhka tahay, hadday adduunyada tahay, hadday diinta tahay, hadday aakhiro tahay. yacni caafiye ilaahay inuu markaa idin caafiyo oo ilaahay balaayooyinka o dhan markaa idinka ilaaliyo, idinka badbaadiyo, hadday jidh tahay, hadday adduunyo tahay, hadday diinta tahay, hadday aakhiro tahay, taa ilaahay weydiista. xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa iyo ducadani markaas inay ahmiyad leedahay. ducaduna dee waxaa la yidhaha iyadu baaba cibaadaha, ama muqa iyo dhuuxa waxaa lagu tilmaamaa cibaadada inay tahay, weliba xilligaa in la ducaysaana inay markaa fiican tahay. waxaa kaloo aan xadiidka ka qaadanaynaa dee qofku inuu masaajidka xilli hore sii tago, si ay kuugu suurto gasho inaad xilliga aadaanka iyo aqiimida dee wixii sunno ay lahaydna aada u tukato, isla markaana aada u ducaysato. haddii aada mashquultooda ma soconaysa ama aad meheradaadii ku dhex sugan tahay dee ma xasuusanaysid, laakiin markaad masaajidkii sii gasheed ku sugan tahay ayay suurtagal ku tahay. waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu qofka muslimka ay ku dadaalo awqaadda markaa ajiibitaanka ee ducada markaas la aqbalo. oo waxaa ka mid a xilligan, waxaa ka mid a habeenka niskiga qeybtiisa dambe, saacadaha markaa ugu dambeeya maalinta jumcada, sujuudda ayaa ka mid a marka aada sujuudsan tahay. ducadu weliba ducaa ikhlaasa waa inay noqotaa, waa in marka aad ilaahay baridaa adigoo muuqin bilijaaba inuu ilaahay kaa aqbalayo rumaysan. waa inaad markaa dee xaaraan cun aanad noqonin. haddaad xaaraan cun tahay ducadaada la aqbali maayo. waa inaanad dedejisan ilaahay waan baryana waxba naga aqbali maayo annaga, alla wuxuu naga aqbalaya haddaad tidhaahdo bes waxba laga aqbali maayo. markaa ducaduna waa ducaau lcibaada iyo ducaau lmas'ala. midi waxa weeye waa duca cibaadaahoo waa ilaahay raali noqoshadiisa inaad ku raadsato daacooyinka aada samaynayso, salaada iyo soomka iyo xajka iyo waxyaalahaasi. waxa weeye dee waa duco ilaahay baad markaa kaga doonaysaa abaalmarin. midna waa ducaau lmas'ala oo dee waa inuu qofku markaa ducooyinka ilaahay uu ku baryayo, ee uu risqiga ku weydiisanayo, ee dembidhaafka uu ku weydiisanayo, ee naxariista uu ku weydiisanayo, ee markaa shayaadiinta uu kaga maangelayo, ayaguna waxa weeye waxay ka mid yihiin waa ducaau lmas'ala ayay noqonayaan. ducaau listiftaax, waxaa la yimi salaadii baa markaa haddana la gelayaa. marka aada xidhato bal ducadii markaa halkan iyadan aada akhrisanaysay ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa. ducooyinkan waa dhowr duco ayuu markaa sheekhu inoo soo qaatay oo dhowra. ducooyinkaasi ma aha kuwa la kulminayo, marba yacni qaar ayaad akhrisanaysaayoo xaalado kala gedisan ama dad markaa kala gedisan oo nebiga sal lla ly slm wax weydiiyey ayuu markaa nebigu sala allahu alay slm u sheegay. markaa mar la kulmin maaye marba mid ayaad ku ducaysanaysaa.
allahuma baacid wuxuu odhanaya ilaahu kala fogee baynii wa bayna khataayaya aniga iyo dembiyaalkayga kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib mashriq cadceed ka soo bax iyo cadceedda inta u dhaxaysa si aad u kala fogaysay ilaahuna iyo dembiyaalkayga noo kala fogee allahuma naqinii min khataayaaya ilaahu dembiyaalkayga iga daahiri kamaa yunaqa thawb labyad sida marada cad looga dahiriyo min adanasi wasakda allahuma qsilnii min khataayaaya ilaahu dembiyaalkayga waxaad igaga maydhaa bithalji baraf walmaayi biyo walbaradi iyo berad markaas ilaahayow igaga maydh buu odhanaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabiga abu hureyre la yidhaahdana waa laga warinayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay takbiirta markuu kibaartu salaada xidho iyo qiraada waxoogay ayuu aamusi jiray markii dabeetana ay weydiiyeen ya rasuulallaahi aamuskaaga takbiirta iyo qiraada dhexdooda maa taquulu maxaad tidhaahdaa wuxuu yidhi waxaan leedahay allahuma baacid baynii wa bayna khataayaya tan ayuu markaa u sheegay sidaasaa markaa axaadiidaasi ay tilmaamaysaa allahuma baacid ilaahayow kala fogee oo iga tir markaa dembiyaalkii hore ee iga dhacay ilaah iga tir waxa dambana ilaahayow iga ilaali baacid baynii wa bayna khataayaya kamaa baacadta bayna almashriq si aad u kala fogeysay labadaa ilaahu annagana noo kala fogee anigiyo dembiyaalkayga mashriq iyo maqrib si aad u kala fogeysay allahuma naqinii min khataayaaya ilaahayu dembiyaalkayga iga daahiri oo iga tir oo iga nadiifi kamaa yunaqa thawb labyadu marada cad min adanasi wasakda sida markaa looga daahiriyo waayo marada cad wasakdu markaba way ka muuqataa marka dabeetana la nadiifiyana waxaad garanaysaa wasakdaasay uga baxday laakiin marada aan caddayn marka horena wasakdu ka muuqan maysa marka dambana dee siday markaa uga daahirowday ma muuqanayso sidaasoo kale umuqayso ilaahu sida marada cad wasakda markaa looga daahiriyo saas oo kale dembiyaalka ilaahay oo iga daahiri allahuma qsilnii min khataayaaya ilaahu dembiyaalkayga bithalji baraf walmaa'i biyo walbaradi iyo qabow ilaahay oo iga daahiri waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa ducadani iyo ducooyinka kale aynu arki doonaaba inay mashruuc yihiin oo qofku marka uu xidho intaanu faatixadii akrin inuu hadday salaadu faraltiya hadday sunno tahayba inuu istiftaax ku sameeyo oo ku ducaysto waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa say saxaabadu ugu dadaalayeen axwaasha nebiga sala allah alay slam inay raacraacaan oy ogaadaan ummaddana usoo faafiyaan leannu nebiga wax walba waa lagaga daynayay bal aamuskii yaraaye xataa way la socdeen wuxuu akrinayay dhegaysanaya iyagoo salaada ku jira markaasay intaa udhaxaysa nebi maxamedo waad aamusaa maxaad tidhaahdaa markaasay inooga soo rareen tii u odhanayo ay markaa inoo sheegeen xadiidka markaa biyaha iyo markaa thalajka iyo beradka waa mubaalaqown ilaahu dembiyaalka iga daahiri sida markaa maryaha dee biyaha fara kala duwan loo adeegsadayba markaa ay u daahirowdo dunuubtu markaa xaraaro iyo kulayl ayay markaa leedahay oo dee sababbay markaa cadaabtii u tahay yacni saasay munaasib ugu noqotay in markaa beradka iyo qabowga iyo barafka ilaahay markaa loo weydiisto ayay markaa munaasab noqotay darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam